waa xaas ka soocan kubadda adduunka weli iyada la'aanteeda ma uusan rajayn inuu wanaagsanaado sidee Maggie Salah ku hanatay wadnaha mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan adduunka. waa og tahay waxay dhahayaan nin walbo weyn waxaa ka dambaysa naag weyn. Georgina waxay ka dambaysaa Cristiano Ronaldo, Antonello waxay ka dambaysaa Lionel Messi, Shakira waxay ka dambaysaa Gerard Piqué. halkaa had iyo jeer waxaa jooga naaga caqligal ah oo taageera ciyaaryahanada aadka u guuleysta, laakiin Maggie Salah ma aha nooca xaaska ciyaaryahan. iyagu waxay jecel yihiin inay boost-gareeyaan wax waliba social media ah iyo in la siiyo wareysiyo badan, laakiin Maggie waa khayro caadi oo mar la arag ah. waxay publika ka soo muuqatay 4 mar, waxaa lagu arkay iyadoo 2 mar dhamaadka xafladii xilli ciyaareedka England, qaas ahaan midka uu Mohamed Salah ku guuleystay Golden Boot. The other 2 times she appeared in public were in the Liverpool stands. She was seen at Anfield during the now legendary Liverpool-Barcelona game, won 4-0 by the Reds. Mohamed and Maggie got married in 2013 when Mo was playing for Basel in Switzerland. They met at school when they were teenagers and lived in the same village in Egypt. Their love has lasted the test of time, and Mo Salah's popularity has changed nothing. Maggie waxay ka shaqeysaa biotechnology. waa xushmad. Maggie waa gabar iska caadi ah oo qalbi leh. taasi waa waxa ay ku jeceshahay Mo Salah. qoyska si weyn ayay muhiim ugu yahay asaga, laakiin wuxuu jecel yahay inuu ka difaaco qoyskiisa kaamarada. lamaanuhu waxay ku xiran yihiin caqiidadooda, labaduba waxay rumaysan yihiin Muslimka. waa sababta ay gabadhu ugu magacaabeen Maka si ay u qadariyaan. Maka waa magaalada barakeysan ee Muslimka. Maka waxay dhalaalisay qalbiyada taageerada markay la timid banjiga aabaheed dhamaadka xilli ciyaareedka. Maggie and Maka are grounding for Mo Salah. Maggie helps Salah keep his head on his shoulders during the good times, like when Salah was untouchable for Liverpool last season. She is also his biggest supporter and helps him cope when things get tough. That's true love, wouldn't you agree? She also supports him with his charity projects. It's not surprising that with such a generous partner, Salah greeted a homeless person who wanted to steal from him. Mohamed has always been a pure human being since he was young. When he was 10 and he was training at the local club in his village, there was a dog with puppies surrounding the training ground. Salah brought food every day to feed the puppies. He was always like that. He has a big heart and loves to give. Mo Salah is simple, generous, humble and discreet. And Maggie is exactly the same. Birds of a feather stick together. If Mohamed Salah is a world-class player today, he owes a huge amount of his success to his discreet wife and soulmate,